Shiina culey dadka hore isku meelkeen aqoonin hadda isku keen barteen laakiin anaga waxaan yahay dad hore isku yaqaanay. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo aad dunida ka joogtaan waa anigoo Zahabo iyo halkan la socotana waa maqal tube kusoo dhawaada muuqaalkana maanta. haddaba intaan muuqaalka u gudagelin haddii ay tahay markii kugu horeysay aad channelkan soo booqato subscribe saar sidoo kalena video like garee si dad badan u gaaro mahadsanid. gabadhani lagu magacaabo Manaal Beeldaaji ayaa markii ugu horeysay si toos waxay u soo fadhiistay YouTube-keeda eena kala hadashay arrimihii maalmahan baraha bulshada ka dhex yaacayay oo Shiina Culey iyo ayada Google xagdaaf inay sameeyeen kaasoo u ahaa baraha bulshada muuqaal codsar laga soo duubay oo muran badan dhaliyay. si kastaba ha ahaatee Manaal Beeldaaji ayaa markii ugu horeysay YouTube-keeda soo fadhiistay waxayna ka hadashay waxa ka dhaxeeyo ayada iyo Shiina Culey. haddaba Manaal Beeldaaji ayaa si toos waxay uga hadashay waxa ka dhaxeeyo ayada iyo Shiina Culey. haddaba Manaal Beeldaaji iyo Shiina Culey maxaa ka dhaxeeya waatana ayadoo noo faahfaahinayso balse aan isla daawano. Horta dad badan ayaa su'aashan soo weydiiyay anigana marar ayadoon soo u faahfaahsaneen meelaha qaar ee social media waa ku soo qortay. Shiina Culey dadka hore isku meelkeen aqoonin hadda isku keen barteen laakiin anaga waxaan yahay dad hore isku yaqaanay. Shiina Culey waa abtigay labaad ee dhabta ah ma ahan dad badan waxay yiraahdeen waa qabiil ahaan ayuu abti ugu yahay. waa ogtihiin Shiina Culey inuusan ahayn qabiilka hooyadii ama uusan ahayn qabiil aniga aan ahay. dadka marka waxaan rajeynayaa dadka inay hadda aamini doonaan inuu yahay abtigay labaad ee dhabta ah Shiina Culey. haddaba arrintani ayaa dhawarjabin weyn ku noqotay saygii hore ee Manaal Beeldaaji CK balse si kastaba ha ahaatee muuqaalkan ayaa meel xun gaaray balse familkeeda ayaa kasoo hadlay. Manaal Beeldaaji waxay sheegeen Shiina Culey inaan la tiigsan doono maxkamad haddayse ay noqon weynin shantooda inay kaga cawaana maali doonaan. si kastaba ha ahaatee Shiina Culey ayaa isagana qirtay inuu codkaas sirka oo isaga soo geliyay uuna qoran yahay inuusan u arkeynin wax ceeb balse midaas ayaa mid laga xishooday weyn oo maanta baraha bulshada magac ku leh inuu haddana muuqaal uu soo fasaxo oo haddana uu sii sheegayo inuu waxa kale la hayo lasoo sidaayo uu waxsana ceebsan uu arkeynin. Soomaaliya ninkaas codka iga duubay wallaahi isaga iga duubay codkaasina wuxuu ahaa taariikhan ka hadlaynay waxaasa hebel waa halkaasaa la yiri halkaasa waxa ka dhaceen waana garanaysaan nin hooyadii ninka xaaskiisa duubayay war mashiin u nagaanayay waxa kale oo idin sheegaya codad badan buu iga hayaa muddaa wada hadleynay codadku iga hayaa dad iska sheekaysanayna ahayde codad buu iga hayaa waxa arkaya isagoo halka ku soo qoraya codadka Shiina ka hayo waxa weeye waa qayb baa u soo deynaya wariyaa aniga ma waxa ay haysataa cawradii fiimo goobayn jirta ay haysataa anu ma cawraan leeyahay wasakh baa tahay waxa hayso hal mar soo wada fasax soo wada dhig nin Culey la dhaho aan dhalaya bad ceeb qaban maxaa ku ilaa bad lagu ma kaajo horaan u iri dhagax taabasho iyo tuujin waa isu kaymid maangaab daciifa waxba kala aqoon baa tahay inta nooshayna nabar baa noqonaa kugu baalkaysan dulli baa tahay ninkii halka xaaskiisa cawradeeda keenayay oo maxaan ku yiraahdaayay codkeeda keenayay iyadoo la xabiibi waa ku jecelahay ku sasabanaysa keenayay iyadoo le waa ku baahanay sariirtan keenayay saaranahay keenayay guriga intuu ugu dhaco soo duubayay iyadoo qaawan halka soo dhigayay naasaheeda nala wadaagayay horaadadeeda kaasaa tahay dulli baa tahay naagan qaba lama arko caruuraan dhalay lama arko maxaan ku yiraahdaa noloshiisu nin isugu toosan tahay baan ahay Yurub xiniyahayga shilinkayga labadayda lugood baa ku yiri habari iba keenin hooyadii fuule miihi halka inta Afrika layguma biili jirin YouTube-ka aad kugu jirtaa every second day gabadha halkaas ka ooyaysa 5 sano biilanaysa codka waxa iga duubay in fiima iga duubay futamaal baa iga duubay ninka dhaqankiisa waa taqaaniin nin waxa la yiri hooyadii ka guuriyay dohdii uma nagaado waa ninkii xaaskiisa duubayay ninaan saaxiib ba ahayn oo wada hadalno oo hadba YouTube-ka iyo xiga soo weydiiyay buu ahaa niman dhalinyaro iska sheekaysanaya oo sheeko u dhiibtay oo
taariikhooyin dhacay ka hadlaya baan hayn wixii buu iga duubay wixii buu soo jarjaray annagoo taariikhooyin dad ku dhacay iyo waxyaabo ka hadleena in general ah wixii buu duubay wixii buu maanta halkaas soo dhigay isagoo muhiimadiisu tahay inuu aniga igu sumcad dilo oo 200 oo wax oo kale oo codada uu jarjaray uu ku soo daray oo mar aan xataa maalin aan halkaa intaan aan ka iri in fahimo oo libaaxii soo diray aan wareed waa ceeboobay oday ceeboobay baa xaal baa ku siiyay buu xataa wuxuu ka dhigay inaan codkii qaranayo leeyahay waa ceeboobay buu ka dhigay gabdhuu soo saaray aan giiman wada ciyaari jirnay oo hadda kornacaayay oo beesha hawiye ka soo jeeda oo sharaf naga mudan buu cod oo meelaha haduu soo dhiga duuba anaga YouTube ma geenayno codkaan ka hadlayaa duuba codka aan ka hadlayaa halka oo kii maxaa la oran jiray in fahimo futamaal oo meelaha wareejinayaan raba inaan ka hadlee marka duubta meelaha soo dhiga codkaas raba inaan ka hadlo oo uu soo dhigay ninkii la oran jiray futamaal oo meelaha wareejinayo duubta waxaan idin sheegayaa Soomaaliya codka aragteen oo anigana aan arkay oo social media wareegaya oo in fahimo futamaal oo Facebook iyo TikTok soo dhigay codka waxa iga duubay in fahima iga duubay futamaal baa iga duubay ninka dhaqankiisa waa taqaaniin nin waxa la yiri hooyadii ka guurayso dohdii uma nagaado waa ninkii xaaskiisa duubayay nin aan saaxiib ba ahayn oo wada hadallo oo hadba YouTube-ka iyo xiga soo weydiiyay buu ahaa niman dhalinyaro iska sheekaysanaya oo sheeko u dhiibtay oo taariikhooyin dhacay ka hadlaya baan hayn wixii buu iga duubay wixii buu soo jarjaray annagoo taariikhooyin dad ku dhacay iyo waxyaabo ka hadleena in general ah wixii buu duubay wixii buu maanta halkaas soo dhigay isagoo muhiimadiisu tahay inuu aniga igu sumcad dilo oo 200 oo wax oo kale oo codada uu jarjaray uu ku soo daray oo mar aan xataa maalin aan halkaa intaan aan ka iri in fahimo oo libaaxii soo diray aan wareed waa ceeboobay oday ceeboobay baa xaal baa ku siiyay buu xataa wuxuu ka dhigay inaan codkii qaranayo leeyahay waa ceeboobay buu ka dhigay gabdhuu soo saaray aan giiman wada ciyaari jirnay oo hadda kornacaayay oo beesha hawiye ka soo jeeda oo sharaf naga mudan buu codkii soo saaray si dadku ay gabdhaha u moodaan sida aragteen waxa oo dhan wuxuu wiilkaas ka xun yahay game-ka aan ciyaarayo waa risqmaana wuxuu ka xun yahay habeen dhaweyto oo aan dood dhexdhexaadinayay buu doodii soo dalbaday dadkii wax falanqeynayay inuu ku soo biiro damcay dadkoo dhan baa u jeeday waa ka qaban waayay sababtoo ah dad wax gala baa faylka ku jiray in fahimo markuu dooda imanayo dood siyaasad Soomaaliyeed looga hadlayo muxuu uga hadlayaa ma fahimo waxa way cawradoodu ka sheekeynaya waxaan muxuu ka hadlayaa muxuu ka sheekeynaya mise qabiil baa la caayaya mise majeerteena lagu naxaya wallahi oo billahi waa soo qaban waayay hal saac u taagnaa committee lagu soo qorayay waxba magaciisana ma xusin warodiga tag baan ku yiri xog soo qaban mayay intii buu ka xumaaday codad buu isku soo jarjaray halku soo dhigay marka nin xaaskiisa cawradeeda halka soo dhigayay wardaheeda aniga ii nagaan mayo game-kayga buu wuxuu rabaa inuu dadka iga hor keeno waxaan arkay calanka Soomaaliland anoo isagoo keenay waxaan arkay isagoo maaragtay anoo dawladda Puntland hadda koor maaragtay maagmaagay uu keenay waxaan leeyahay warniyow Somaliland de waa dad Soomaaliyeed weeye maalinta ay maaragtay 18 May u dabaaldegayaan dad badan oo Soomaaliyeed waa la isaga hambaliyaa dadka godob badan noo tisanayaan marka niyadan ugu dhisaa aanu marka 18 May la gaaro niyadan ugu dhisaa waxa isdhaha balin maartay halka qubuuraha iyo waxa ay ka mashquulaan niyadan ugu dhisaa nimanka Puntland oo aan leedahay majeerteeyo u ciyaarin oo aan leedahay keenayso anoo dawladda Puntland dhaliilaya war Puntland waxbaan wada dhisanay waa dadaan walaalanahay haddaan leeyahay hadhow baan oranaya hadayaan laha majeerteeno war walaalayaal kuraasta hanaga qadanina intaas aanu dhahay isimadooda macaayo meeytidooda macaayo dad walaalahay weeye inta dimuqraadiyadda dad wax wada dhistay baan nahay marka madaxweynaha meesha fadhiya waxa weeye waa la dhaliilaa taas waa la ogolyahay sidaada laakiin laangaab xuqdad qaba oo maaragtay iisoo qora muxuu ahaa haddaba Manaal Beeldaaje ayaa waxaa la sugayay inay arrinta ka hadasha balse maysa ka hadlin sidoo kalena waxaa jiray horaan inuu muuqaal ugu jiray
sidoo kalena iyana taas way ka gaabsatay ee kamaysan hadlin, balse Shiine Culey ayaa bartiisa dhigay oo wuxuu sheegay codadka kala lahayo waa la soo fasaxi doonaa uusan jirin cid uu ka cabsoonaynin. Haddaba muuqaalka waxaa idin tabinayay anigoo Zahabo halka ka daawanaysana waa Maqal Tube. haddaba waxaan ku leeyahay video si la sheegay oo kale video like si saar inta ku kulmi doona muuqaalka xiga waa anigoo idinka tagayo sidaas iyo nabadgelyo.